بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد saaka waxaan rabaa meeshaan inaan maaragtay kaga hadlo arrimo aad iyo aad cajiib u ah oo aan la yaabay dawladda Soomaaliyana rabo inaan maaragtay hadalkayga aan gaarsiiyo iyo bahda waxbarashada Soomaaliya dhamaantood iyo daladaha waxaan aragnay oo na soo maray maadaama iskoolkii la xiray oo xiran yahay muddo in ardaydii masaakiinta ahayd ee awal iska jeebka yareed oo iskooladii ay ku baran lahaayeen danta guud loogu dhiso dawladda Soomaaliya u dhistay ay ayagu qaab ganacsi ugu hawlgalayaan in ardaydii maanta iskoolka sidii loo xirayba ay ka qaadayaan lacag ah tii hore iskoolka lagu dhigan jiray oo ay ka qaadayaan maamulayaasha iskoolka milkiilayaasha waxaan leenahay marka waa gibir weeye waa maaha wax sax ma qofkii dawladda Soomaaliya bahda waxbarashada waxaan u sheegaynaa marka wasiirka waxbarashada in ay sameynayaan daladaha ku midoobay waxbarashada Soomaaliya horta halana shar gareeyo in ay arday kasta ee miskiina ee awal la yaabana waalidkood oo tabarruc u baahnaa oo ama dadkii dibadda ka bixi jireen ama dad maaragtay magaciisiya oo qoriya lagu soo qaado ka bixi jireen in hadda lagu qasbayo 5 bilood ilaa bisha 8aad ardaygii lacagtiisa aan bixi waxbarashadiisa inay ku ciyaarayaan iskooladu waana sheegi doonaa oo hadda waxaan soo caday doonaa iskoolada nooca ku dhaqmaya waa dhammaan iskoolada ka furan magaalada Muqdisho oo ku bahoobay daladaha qaar kamida oo anaga hadda dadkii uu dhigtaan ilmayaashan oo ay dhigtaan amba ilmaha darisku dhigtaan soo kormeernay walow ay sabahda waxbarashada Soomaaliya u xil saaran ama wasaaraddu aysan wax maartay kala hayn waxaan leenahay marka maadaama la kor saaray culayskii coronavirus ay macallimiintii iskooladu ay dul saareen dadkii on meel furan la arag ayaguna ay lacag gibira oo saaraan ardayga $15 $30 ninkii aan keenin waxbarashadiisa 5 sano ama 4 sano ay leeyihiin waa ku ciyaarayna waxaan leenahay dawladda Soomaaliya khaasatan wasiirka waxbarashada goodax bare iyo wasaaradda hidaha iyo tacliintu waa in si degdeg uga jawaabta baaqeena ma jirto hal arday ee wax la baro oo loo aadayo ma jirto nin kasta hore wuxuu u furtay bareefadka ah inuu dadka dushiisa uu ka macaasho walow aan dawladu jirin xakameynaysa ama aysan jirin xukun islaami oo ay ka baqaan markii la geeyo ay ila sharciyada islaamka dadku qofka wax ku maamulaya wuxuu fahmi karaa waxaan inay xaaraanta inay xalaal tahay waxaan la sheegi doonaa magacyadooda saddexan iskoolada nooca looga dhaqmo magacooda daladay ku jiraan meesha hoos tagaan iyo in ay wasaaradda waxbarashada ay hoos tagaan waxaan ka codsanayna oo mar labaad ka boqor ahaan aniga magacaygu waa boqorka beelaha weeye boqor cabdi axmed cali waxaan soo ogaaday dhaliisha dawladda Soomaaliya lagu dhaliilayo in ay kala bar saddex markii loo qaatay in ay ka jirto iyo musuqmaasuq iyo maartay isdaba maraynta iyo isxaqdidu inay ka jirto iskoolada oo aysan ahayn wax maartay inaba hal akata bikuliyanba ay u turayaan in la arxan goys yihiin waayo nin iska miskiina ama gabar masaakiina oo waxbarasho aan haysan fiiri annaga fiiri waxbarasho ma haysan waxaan jeebkanaga waxaan ka ku dirno iyo waxaan hebel ka qaadnaa ilmaha wax lagu baray li'annahu marka hadii ay iskooladii markii la xiray ay leeyihiin oo raadinayaan ardaydii ama ay leeyihiin natiijada 4 sano waxaan ka codsanay dawladda in nimankaas in loo yeero bahda iskoolada loo yeero wasaaradda waxbarashadu ay u yeerto daladahana loo yeero qaabka noocaana dawladdu nin kasta waa ogtay booliska nafsiguda waa in walba ardayga baa arday buu dhalay ama ardaya la dhashay ama arday habartii dhashay waxaan leeyahay ka boqor ahaan waxaan leeyahay dhammaan waxa iskoola ee magaalada Muqdisho ka jira cunsuriyada ay ku hayaan amba qaabka ay ula dhaqmayaan 95% waa in la geeysta oo wax qof kasta maamul ay arinta ay gacan ka geysata ilaa 5 bilood ama 6 bilood 7 bilood lacag aan wax lagu baranay oo sadaqa ahayn oo laami lagu dhisay oo iskoolkii dawladda Maxamed Siyaad Barre u dhistay aan lagu dayactiray oo wax ay tahay aan la aqoon qaadana waana ku macaasha hadda keenina natiijadii 5 sano aan lacagta kaaga qaadayaan kaaga ciyaaraya wax sax ma waxaan leeyahay oo ka digaya oo u sheegaya wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta dhammaan waxaan leeyahay waa in arinta adinka iskoolada xiray annaga lacag aan ka qaadan jiray iskoolada adinka xiray iskoolada markaad xirtay oo iskoolka lama aadi karo inaad macallimiinta iyo maamulayaasha aad tiraadeen lacag ma qaadi kartiin oo dadka masaakiinta ka leexda aad xaq u lahayd
ما أنا أورد سكول كي حرتين أيوة واحد يران ذاتك العنا صارنا لبدا أحرم موضوع حرمنا سيدك دقن لوجه جوابه ضمان خاص قطن وقاضح بروي هذا أمر كديبي وسارد هذا ديبتي وسارد برشاد ديبتي وسارد برشاد هو سيمادا اتحانك أيها كقاعدة أيها شهادوين كسية أيها هوستجا ضل هو أنا تجواب هذا وديبتي ودم من لو كنترولا قابك أي شنت بلود العكس السوق هذه أرضك السلاقة هذه فيلكي سؤال الراعة سي لو هرو عدالة هدي أي تاي مركا أو وسارد برشاد اللي كلها لوش العكس أنه أرضك السلاقة هذه كلها لوش إسكال الله دون هعدية هذا صح هاي نحل قفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقر عبد أحمد علي بقر كبلاهوي